ku soo dhawaada qaybta koowaad sheekada Hantaaqa Jacayl oo si taxane ah looga daawan doono channelka aan YouTube-ka ku leenahay ee Axmed Waaye Arag. Haddii aad nagu cusub tahay channelka inoo subscribe garee, waayo subscribe kuma ahan lacag ee waa dhiirigelin dhankaaga inooga timid. Sheekada Hantaaqa Jacayl oo ah mid aad u xiiso badan waxaa qoray Muuse Maxamuud Ciise Dalmar. saaxiibayaal hadduu alla idmo waxaan rajaynaynaa inaan sheekada maalin walba soo gelino oo aan dhammaystirno intaan la gaarin bisha Ramadaan. Asxaabtiina ku soo xira muuqaaladan inala sheer gareeya sheekadina ka bogasho wacan. Waxay ahayd xilli barwaaqo ah oo guga markaas uun curtay. miyi iyo magaalana raxmaadka Ilaahay maansheeyay. jawiga magaalada Hargeysa wuxuu ahaa mid aad u macaan laguna xasuusan karo roobka oo aan ka qaadin. waxaa habeenkii magaalada heli jiray gudgude kaas oo dhammaanba magaalada daad marin jiray, iyadoo barqinkiina uu uga dambayn jiray mayay roob. waxaa casarkii soo bixi jirtay cadceed aad u diiran oo ay wehelisan neecaw macaan oo ay dadku ku naaloodaan. dadku waxay bilaabi jireen xilliyadaas inay guryaha ka soo baxaan si ay u qaataan neecawda macaan una daawadaan bilicda dhulka. inkasta oo murti Soomaaliyeed tiraahdo roob magaalo ku hooray ramaad soo bixin maayee laamigu ku raftaa, taasi oo ka dhigan inaanu roobka wax manaafacaada u lahayn magaalada, maadaama aanu soo saarayn wax baada oo ay dadka iyo dunyada manaafacaadsadaan. haddana waxaa hubaal ah in raxmadda Ilaahay miyi iyo magaalaba looga baahan yahay. maalin Jimco ah abbaara 5tii galabnimo oo ay cadceeddu aad u diirnayd kadib markii saacado ka hor uu roob qaaday, cirkana dhankiisa bari ay jeegaan indhaha soo jiidanaysa ka muuqatay. galabtaas waxaa fadhiya barxadda weyn ee maqaaxida Tayuub Xaaji Faarax oo kula sheekaysanaya rag asxaabtiisa ah, kuna sugaya inay dhageystaan warka idaacadda BBC-da, gaar ahaan warka laanta af Soomaaliga. markay goorsheegtadu isku taagtay 5tii galabnimo ayaa quulle oo shaqaalihii maqaaxidu daaray raadiyihii. waxaa isla durbadiiba dananay astaanta muusigada ay caan ku tahay idaacadda BBC-du oo loo yaqaano socodka Caraweelo. qof kasta wuxuu dhagaha u furay si uu uga bogto qodobada warka ugu doorka roon. rag waa shaax, dumarna waa sheeko ayay Soomaalidu tiraahdaaye. Xaaji Faarax wuxuu dalbaday koob shaax ah. intuu lugaha isdhaafsaday ayuu dhagahana la raacay raadiyihii. in yar markii uu fadhiyey ayaa waxaa Faarax u yimid wiil uu adeer u yahay. kadib markii uu salaamay wuxuu wiilkii xaajiga u sheegay in Xadiye oo ah xaaska Xaaji Faarax uu sidkeedii dhammaaday, foolina hayso, loona baahan yahay in loo qaado dhakhtarka dhalmada. Xaaji Faarax nasiib wanaag gaari uu watay oo aan meel sidaa uga sii fogan yaalay ayaa hore ka dhaqaajiyey. durbadiina gurigii ayuu soo gaadhay. wuxuu u soo galay Xadiye oo foolanaysa ayna weheliyaan dhowr dumar ahi. inkasta oo waris oo umuliso ahayd u timid Xadiyo, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in Xadiye dhakhtarka dhalmada loo qaado si ay xaggaas ugu soo umusho. markiiba Xaaji Faarax wuxuu saaray gaarigii. muddo yar kadibna waxaa la keenay Xadiyo dhakhtarka Hargeysa qaybtiisa dhalmada. muddo waxay Xadiye foolataba, goor caways dambe ah ayuu Ilaahay kala keenay. waxaa bilaabmay in ehel iyo asxaabba wixii markaas dhakhtarka joogay ay farxad muujiyeen, iyagoo isweydiinaya talow maxay dhashay Xadiyo. alla gabar bay dhashay Xadiyo ayay si niyad sami ah ugu dhawaaqday Aamina oo ah umulisadii ka dhalisay Xadiyo. ehel iyo asxaabba dadkii waxay bilaabeen inay ugu hambaliyeeyaan reer Xaaji Faarax gabadha u dhalatay, waxaanay ku hadaaqayeen magacyo kala gedisan oo ay u bixinayaan gabadha u soo korodhay reerka. alla tani waa ayaan, sidaa waxaa tiri Cibaado oo ah Xadiye walaasheed. naatani waaba Raxma, waxa iyana sidaa tiri Caasha oo ay deris yihiin reer Xaaji Faarax. maasha Allah, wax Ilaahay bixiyo waxa ugu qiimo badan awlaadee. gabadhii yareed waa loo wanqalay waxaana loo bixiyey Cawo.
inkasta oo Xaaji Faarax wax ubad ah uu ka lahaa Guuleed oo 5 jir ah, haddana Cawo waxay noqotay keli dhanka hablaha. Waxaa weliba intaas u sii dheeraa iyadoo noqotay guri dambeyskii reerka. Cawo waxay ka dhalatay reer ladan oo hayn adduunyo Ilaahay ku manaystay. Aabaheed Xaaji Faarax waa ganacsade weyn, aadna looga yaqaan magaalada Hargeysa. Cawo waxay malcaamad Qur'aan ka bilowday malcaamadii caanka ahayd ee Malcaamad Curyaan ee ku taalay xaafadda Laba Nuux ee magaalada Hargeysa. Intii ay dhiganaysa malcaamadda Qur'aanka waxay ahayd qof yar oo aad u faham badan, akhlaaq iyo adaabna Ilaahay ugu deeqay, taasi oo suuro gelisay inay ku dhammayso 30 juz ee Qur'aanka Kariimka ah muddo gaaban. taasi oo farxad gelisay Macallin Cabdulaahi oo Qur'aanka u dhigi jiray, iyo weliba reer Xaaji Faarax oo iyaguna waajibkooda waalidnimo ka sokow dadaal dheer u geliya dhanka waxbarashada ee ubadkooda. Sidii caadadu ahayd, Cawo iyo walaalkeed Guuleed marka ay malcaamadda ka yimaadaan, waxaa guriga ugu iman jiray macallin ka caawiya duruusta ay maalintaas soo qaateen. Cawo waxay bilowday dugsiga hoose dhexe ee Biyo Dhacay, waxayna aroortii isa sii raacaan walaalkeed Guuleed oo isaguna xagga waxbarashada ka sareeyay. Maadaama ay Cawo wax hore u soo dhigatay oo ay asaaska waxbarashada ka dhisneed, waxa u suura gashay inay ka muuqato dhammaan ardayda ay wax wada dhiganayeen, iyadoo marka ay imtixaan noqotana iyada hogaamin jirtay fasalkeeda. Sheekada qaybtan halka haynoo joogto. Waxaan filayaa inaan qaybtan ku baranay saaxiibayaal qoyska ay sheekadan ku socon doonto. Asxaabtiina ku soo xira, sidoo kale ha iloobina like, subscribe iyo share. Waxay noo balana qaybaha kale insha Allah.